magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxaa la sheegayaa in nin Soomaali ah uu dilay gabar Soomaali ah oo horey ay isku qabeen kadibna uu isagii isdilay. Ninkan iyo gabadhan ayaa waxay isku dhaleen gabar yar. Haddaba faahfaahinta dilkan ayaa waxaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Cabdullaahi Sheekh Mahdi Timcadde oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika. waa maasanta Sandheere walaal waxaa dhacday maanta kowdii duhurnimo dhacdo aad u xanuun badan oo Soomaalida South Africa ay ku waafariisatay oo weligeedna hore aan ka dhicin. dhacdadaas oo ahayd gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed hore isku qabi jiray oo isku haystay carruur isku dhalay oo kala tagay inuu wiilka Soomaaliyeed inta qori soo qaatay oo gabadhi dilay maanta. daqiiqada ilaa 15 daqiiqo kadibna waa isaga isdilay. labadoodiba way dhinteen. labadoodu waa dhinteen. waan gartay marka carruurta isku lahaayeen bal hadda tiradooda ii sheegtid iyo da'dooda. carruurta isku lahaayeen gabar 2 sano xoogaa jirta isku lahaayeen. waan gartay imise sanay kala maqnaayeen haddaad garanaysid. dadku waxay sheegayaan wax ka yar mataqaanaa intay kala maqan yihiin waa 1 sano adee 1 sano iyo 9 bilood waxay leeyihiin dadka qaar laakiin waxaa loo badin inay 1 sano kala maqan yihiin. waan gartay waxa uu ku maagay ma xansateen oo ma ogaateen. dadka markaan wareysanay qaraabada la ah oo xanta aan ogaanay ama dadka ama gabadha qaraabada la ahaa oo asxaabteeda ay la deganayd salaam gabar ay la deganaayeen oo ay wada shaqeynayeen waxay tiri gabadhu waa la guursan rabay nin kala suuqaansaday muddo suuqaansanay kadibna ina bilahan soo socda miya in la guursado la reebo gabadha la arooso oo ninkaasi uu guris geysto. waan gartay sida uu u yimid uu u dilay iyo ma hesheen faahfaahinteeda. sida uu u yimid intaan xogta ka hayno dee anagu marka hore masaajid baan ku jirnay kadib markaan dhacda maqalnay waa oranay meeshaan tagnay gabdho badan oo Soomaaliya ilaa 6 Soomaaliya maanta meeshii ku xanuunsaday oo dhiigga markay arkeen laftigoodii dhulka ku dhaco isbitaal hadda jiifo oo waxay noqon doonaa Ilaahay og yahay oo dadkan dhiigga arkay markay arkaan xanuunsaday marka gabdho badan meesha ugu tagnay oo qaarkood suuxsan yihiin markaan tagnay gabar kamid ah gabdhihii guriga joogay ayaan aragnay gabadhi waan wareysanay waxay tiri anigu waxaan deganahay guriga backside-kiisa taaga la isaga furo gurigana waan watay qolkaygaan ka soo baxay asagoo irida taagan aan soo arkay taaga iska furay waa idaba maray su'aal ma isweydiin wax ma isweydiinin waxaan u qaatay qof taag la'aan laakiin gudaha oo guriga qof u joogo oo laga furi doono ayaan u qaatay waa baxay dukaan baan ka soo adeegtay waa soo laabtay asagoo weli mataqaanaa gudaha barxadda guriga taagan oo laga sii furin qolkii uu raadinayay qofkuu raadinayay ayaan imaaday bay tiri waxa maana weydiinay backsheerkaygaan aaday tiri kadib dhowr daqiiqo ilaa 5 daqiiqo kadibna xabad baan maqlay tiri. waan gartay marka gabadhii uu qabi jiray bay si uun isku heleen. gabadha suuqa sababta waxaa jirtay bay tiri gabar kale oo guriga deeqada la joogtay ayaa inta daaqada furtay tiri xasan baa taagan deeq ay ka furo. marka labadii marxuum baa deeq iyo xasan la kala yidhahda. ha waan gartay maxaad samayseen markaa kadib. waxaan samaynay wax dima asagii baa horta cararay inuu baxsado isku dayay laakiin guriga saqafkiisa fuulay markuu guriga saqafkiisa fuulay booliskii baa imaaday markuu booliskii imaaday adiga intii 10 daqiiqo gudahood booliskii wadanka iyo ambulance baa imaaday markii la imaaday asagii baa la raadiyay waxaa la ninkii hala raadiyay ma dheero gabdhaha kamid ah waxay tiri ninka guriga ku jira meel marka saqafka markuu fuulay dad layra kamid ah oo asaga ehelkiisa baa raadiyay xabad buu soo riday waxbad ku soo riday laba xabad ku soo riday xabadii saddexaad ayuu asaga isku dhuftay marka meeshan dhafoorka xabad isaga qabtay uu isku dhuftay marka kadib booliskii baa baaray anaga baarayna inka hala baxo kadib mataqaanaa ayagii booliskii baa labadii qof baa hawshoodii la wareegay iyo qolihii Faransiga ahaa wixii baa la wareegay. marka hadda cisbitaalka ayaa loo qaado baadhis baa lagu wadaa meydadkoodii. baaris baa lagu wadaa kadib gabadhu laakiin maskaxdeeda baa ku soo daatan soo aragnay aad iyo aad mucjiso xanuun badan bay ahayd dadkii South Africana waxyaabaha aad koola yaabihiin maanta waxay tahay dad Soomaali ah oo istilahayo anaga dad badan oo ajnabiga waxa yaa wadanka ugu laayaa oo wadanka security waa ka xun yahay tuulooyinka wax ka dhacaan ganacsiga la isku diraa wax badan baa dhacay laakiin mucjiso ka weyn maanta in laba qof oo carruur isku dhashay ay isku dilaan wadankan oo dhibaato inta laga ay dhacdo waa maalintii ugu horeysay South Africa la maqlo waxaa laga yaabaa wadamada adduunka kale inay ka maqlaan qof Soomaali baa la maqlay laakiin maanta inay goobjoog u ahaayeen wixii dhacay inay aad u gargagaxeen. waan gartay ma jiraan dad ehelo iyaga oo ah xigto ah oo laga yaabo gabadha yare labadooduba ay ka tageen inay daryeelkeeda ay maartay way jiraan dad badan ehelada imaaday arrinta gabadhana kulli waa la qaadi doonaa hawsheedana waa la wareegi doonaa jaaliyaduna kulli waxay tiri wixii aan waa nambarada u qornay dadkii xigta ahaa in nala soo xiriiraan wixii dheeraad ah oo ay u baahnaadaan haddii gabadhan la dirayo oo anaga communication la fududeynayno iyo haddii wax kala mataqaanaa marka waan ka soo tagnay laakiin xogtii dadkii ehelka ahaa meesha way imaadeen. kaasi waxa uu Cabdullaahi Sheekh Mahdi Timcadde oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.